بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabaa maanta in aan ku soo noqdo YouTube-ka aniga oo raba in aan ka hadlo mowduuc ayaantan aad moodid in uu si gaar ah tashinka dadka Soomaaliyeed ama dareenka dadka Soomaaliyeed u kiciyay mowduucaas oo ah barnaamij ku saabsan sodohda oo ayaantan aad loo hadalhayay waxaan rabaa in aan bilaabo casharo ku saabsan xidhiidhnimada Soomaalida dhexmarta taasoo rabo in ay wax ku biiriso garaadka iyo fahamka dhalinta Soomaaliyeed magacaygu waa Ismaan Sheekh Axmed qoysbile waxaan ka mid ahay dadka tirada yar ee ka hadla arrimaha qoyska haddaan u soo noqdo arrimahan guurka inta badan waxa isguursada waa dad kala duwan ka yimid nolol kala duwan lagu soo kariyay bi'ad kala duwan iyaga laftirkoodu jinsi ahaan kala duwan muuqaal ahaan kala duwan aqli ahaan kala duwan wax walba oo kala duwan yihiin taasuna waa dhadhanka nolosha sababtu waxay tahay xataa hadday isku mid ahaan lahaayeen isma jeclaadeen waxa soo jiidaya waa kala duwanaanshaha guurka iyo waxyaabaha ka dhasha haddaan u soo noqdo labada qof markay rabaan inay isguursadaan ama ay ku heshiiyaan guur saddex arrimoodba waa muhiim hoosta inaad ka xariirto kow bilaabi mas'uuliyadda labo kala duwanaan saddex network ama xiriir cusub oo ku bilowday mas'uuliyadda waxay ka bilaabanaysaa gurigaaga gabadhaada wax walba oo mas'uulaad ka ahayd inaad qaadid hadday noqon lahayd dhaqaalaha jinsiga caafimaadka nolosha wehelinta iyo naxariista dhinaca kala duwanaanta waa kuu sheegay waxaan aaminsanahay kala duwanaantu inay tahay waxay si keenay wad kala duwan tihiin oo lab iyo dhadig baa tihiin waa kala duwan tihiin oo isku da'ma tihiin waa kala duwan tihiin oo isku meel ku midna soo korin waa kala duwan tihiin oo dan iyo maslaxad weyn ayaa idin isu keentay haddaba markay taas u dhacdo maxaa kaloo imanaya waxa la yiraahdo network ama xiriir aan hore u jirin gabadhan waxay ka timid guri adigu waxaad ka timid guri kale labadiinu waxaad wadataan noloshii dabeecadii deegaankii aad ka kala timaadeen qof walba wuxuu leeyahay waarig walaal abti hooyo qaraabo qof walba qofka kale dadkiisu dadkan waa ka duwan yihiin laakiin maxaa isu keenay waxa isu keenay waa xiriirka wiilka iyo gabadha ka dhaxeeya halka waxa ka abuurmay waxa loo yaqaano xidhiidhnimadu macnaheedu aad iyo aad ayuu baliiq u yahay dadka Soomaaliyeedna waxaan rabaa in ay fahmaan macnaha xidhiid af Soomaali waxa lagu yiraahdo af Soomaali xidhiid haddaad sii fahamtid wax weyn baa ku soo baxaya luqadeenuna luqad balaaqadeedu aad iyo aad u sarreyso waxaan ku faraxsanahay haddaan hadda israad ashraxi way noo socon doontaa laakiin markii aad si hoos u fiirisid xididka wuxuu abuurmayaa isumaanshaha ka dhasha wiilkii gabadha oo mid walba qoyskiisa oo ka yimid taasoo ah xiriir cusub oo labadan qof isu keenay loona baahan yahay labaduba in ay dhowraan